warar ilaa iyo maanta soo shacbaxay ayaa sheegaya in gudaha magaaladaasi waa magaalada afgooye ee shabeellada hoose kufsi lagu geystay haweeney da'deedu u dhaxayso 80 ilaa iyo 90 sano maamulka magaalada iyo taliska booliiska ayaa soo bandhigay nin ku eedeysan kufsigan iyo kufsi kale oo hore deegaanka uga dhacay taa oo markii ciidanku gacanta ku soo dhigeen ninkan la xaqiijiyay kufsi kale hore u geystay mid ka mid ah beeraha ku yaala magaalada afgooye ee shabeellada hoose oo haweeneydan ay xilligaasi ku daajinaysa ama ay ku raacaysa ari ayaa la tilmaamay in ninkan uu kufsiga kula kacay isla mar ahaantaana ciidanka booliisku ay gacanta ku soo dhigeen booliisku waxay sheegeen in baaris ay sameeyeen ay ku ogaadeen dhanka isbitaalkana ama dhaqaatiir ay xaqiijiyeen kufsigu uu jiro sidoo kale waxay sheegeen inay markhaati u hayaan ku dhawaad ilaa 6 qof oo kiiskan ku cadeey kara ninkan oo maanta ciidanka booliisku ay soo bandhigeen haddaba si aan faahfaahin uga helo dhacdadan kufsiga la xiriirta ee loo geystay haweeneydan da'deedu u dhaxayso 80 ilaa iyo 90 jirka waxaan qadka telefoonka caawa kula xiriiray gudoomiyaha magaalada afgooye ee shabeellada hoose Ibrahim Umar Qaasim oo aan ugu horeen weydiiyay inuu faahfaahin iga siiyo sida kufsigan u dhacay degmada afgooye waxaa ka dhacay kufsi xun ayaa ka dhacay kufsi oo maamo waayeel 90 jir ah oo loo geystay ayaa ka dhacay yaa geystay kufsigaas kufsigaas waxaa geystay من دين إيمان عن له إنه إلهي كفرت أو حواي أو وحن دني عن أقعد من أقطع كاسي هبر ويا لسجا شنجرة يوقف صدي دعوة ذاتي أيا وحيد عضي شلي هل سديت ساعي بركي أيا دعوي أرنكاس كوب جوجيال ماشي كده وين أيا صوت شيء تنك دورها دجمة ماشي لك سوكلا دورها حقول هاد marka wadadii degmada iyo riboodkii laamaha amniga si fudud ku soo siiyay anagoo iskaashanay laamaha amniga iyo maamulka degmada iskaashanayaan ninkii ayaa si degdeg looga dul tagay asoo aan ka dhamaanin oo dul taagan ayaa looga dul tagay wayahay haweeneyda kufsigan loo geystay sida idinku baad sheegaysaan da'deedu waa imisa 90 jir ilaa 80 jir u dhaxaysa haweeneydan da'da ah ee aad sheegtay in kufsiga loo geystay iyadoo waqtiga xagee ku sugneed deegaanka ama goobta kufsiga lagu geystay ma gurigeedu buu ahaa ma magaalada gudaheeda xagee kufsiga ku wajahday ari bay raacaysay xoogaa ari bay raacaysay hawarta waa gartay kufsi baad ka hadlaysaan yaa idin xaqiijiyay inuu kufsaday dinku asoo qaawan ayaa laga dul tagay wuuna cadeystay afkiisa ku cadeystay waa gartay marka laga tago inuu cadeysto waxa dhici karto inuu cabsi kaga timaado dhanka maamulka ama ciidanka aad wadataan iyo wax walba iman karo ma u haysaan cadeymo in kufsigu uu dhacay isbitaal hadii ay tahay marqaatiyaal oo tirada lagu talagalay lagu cadeeyay marqaatiyaal ilaa 6 nin iyo alaamihi amni oo meesha gaaray 6 nin oo gacanta ku dhagay ayaa cadeyntooda cadeeyay 6 marqaati ayaa cadeysay sharciga ayaan maxkamadan horgeynay kadib kolay waa la xukumay oo maxkamadda anagaan horgeynay sharcigaan horgeynay markhaatiyaal wax walbana way u dhameystiran yihiin maxaa lagu xukumay haddii aad maxkamad horgeyseen wallahi maxkamadda u taalaa kolay waa weli xukunkiisi wixii maxkamadda ay ku xukuntay wuu xiran yahay gacanteena wuu ku jiraa kolay waxaa kaloo weliba soo baxay kufsi kaloo horay oo u geystay hataa way soo cadaatay oo dhibaato dad oo u geystay oo saldhigga maanta soo gaareen ayaa waxay dhaheen dhagarqabahana takor ay dhibaato loo geystay yuu u geystay dhibaatada oo ma baarteen oo ma haysaan xogta dad waa baaray haweeney kale oo ayadana kiiskeeda saldhigga yaalay iyo maanta ayadana ilaa maadid oo oodigaba ku jirtay iyo maanta imaaday ayadana timid iyadoo weliba dad kale lagu dhex daray kasoo saarada ay kasoo saartay waa gartay marka kullay hadda gacanta lama amnigu ku jira sharciyan la marina insha Allah mudana gudoomiye ma baarteen damaca inta la eeg ninka ku qasbay in qof waayeel uu kufsi kula kaco ma baarteen madaraagis buu isticmaalay ugu yaraan maxaad ku ma weydiisan su'aalo la xiriir wax ku sabab kufsiga waa weydiinay macna markaan dhahnay heerkan maxaa ku geeyay siyaabo oo wuxuu nala hadlay inuu karto afkiisa ku kartay waa damcay damaca iigeysay waxaanayna waa dhaafweyn waa gartay waxaad iga warantaa maamada dhibtaan gaadhay xaaladeeda caafimaad waa sidee xaaladeeda caafimaad okay ahayd
ari bay raacaysay waa dareemi kartaa qof ari inuu meel ka foofisay oo ari beera ku daajinayso marka qof caafimaad qaba ari daajinayo soofinayo marka bar iska waaye lahayn iska oo aad u liidato oo hawe oo hadda qof dhow aan ahayn hadda ugu yaraan mudana gudoomiye goorma la rajeenaya in cadaaladda uu wajaha ninka dhibka geystay wallahi cadaaladda ma dheero oo hadda waa sharcigan horgeynay kulli maalmaha gudooda sharciga la horkeenaa hadda dambiilo xuquuqdiisa oo yeeshan insha Allah waa la marinaya waxay ahayd bilooyin ka hor markii laba caruur oo da'adoodu u dhaxaysay 3 iyo 4 gudaha magaalada lagu kufsaday ilaa iyo haddana booliisku cidna uma uusan qaban dhacdadan ama maxkamad looma soo taagin kufsiga maxaa ku soo celceliyay afgooye kufsiga Soomaaliya dhan uu ka jira ma ahan mid afgooye kaliya kufsiyo ama afgooye ku kooban meelo badan ayuu ka dhacaa dalka Soomaaliya meel walba ka dhacaa media joogta wax walba aragtaa afgooye horta kaliya ma ku koobna maanta masiibada meel walba ka jirta ilaah baan ka baryeynaa sharwadayaasha mar walba in sidaan oo kale aan loogu guuleysto gacanta la maxay dhahayaan gacanta in ku soo dhigno inkastoo dadaalka iyo feejignaanta ay aad u badan tahay mar walba wacyigelin aan ka sameyno dayacaadda caruurta in meel lagu ogaado waalidiintooda ay xifdiyaan amniga markasta inuu u heelanaado alkuliiso ama dad muqaadaraad meelo kula baxeen in haddii la arko sharciga la horkeeno inta waa daba taaganahay insha Allah waayahay su'aasha mudane si baad uga wareegsanaysaa mudane gudoomiye yaad ilaa iyo hadda u ciqaabteen caruurtii da'da yarka ahaa ee lagu kufsado gudaha magaalada taas kulay baarid CID ayay u gudubtay arrintaa oo dadkii aan u tuunay ama aan u qabanay CID ayaa la wareegtay kiiska marka waxaan aan ku sheegi lahaa in haddaba arrintaasi meel cad ay martay oo haddana aan ku taaganahay sharwadayaasha dhibaateeyo ummadda Soomaaliyeed inaan gacanta ku dhigno lagana badbaado biidnillahi alkariim waayahay gabagabadii waxaa tahay gudoomiyaha magaalada afgooye ee shabeellada hoose waxaad iga warantaa magaaladan amnigeeda guud xaaladeeda dhaqdhaqaaqeeda ganacsi dhan walba bal ugu dambeynayso koob degmada aad bay wanaagsan tahay wadooyinkii ka xirnaa oo ay saameeyeen magaalada dhawaanahan way kala go'day dhibaato adag ay biyaha saameen fatahaadii ay ku yeelatay roobab xoogan oo degmada ka da'ay wadooyinkii oo go'een magaalada oo gabi ahaan laga fuursaday wax gaadiid ah inuu galo ayaa dhawaanahan muddo ku dhawaad 2 isbuuc shaqooyin adag ayaan degmada ka socoto wadooyinka waa la furay magaalada waa isku furantay laamaha amniga meel walba daqiiqado gaariyaan sida shalay ugu soo horeyso ay ugu gurmadeen dhibaatada ka dhacday beeraha beerta ugu soo horeyso ee degmada afgooye kadib markii laga soo sheegay dhibaato inay ka jirto arrintaasi waxay wadooyinkaasi ay caawiyeen oo aan dareenay sida fudud ee ay ku gaareen laamaha amniga bartifalka ka dhacay ay gacanta ugu soo dhageen xaaladda amniga ee degmada afgooye aad bay wanaagsan tahay afgooye maadaama in badan furun ama goob dagaal ay soo aheyd hadda laakiin banaanka tuulooyinka degmooyinka ayay jiraan laamaha amniga sida sabiib caanoo la mareeray ilaa iyo waxay jiraan tuulooyin kale xaaladda waa okay degmada hadda banaanka laga jiraa